بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 8 oo min suurati almujaadala ka mid ah. ilaahay aayaddan wuxuu nagu leeyahay subxaanahu wa tacaala alam tara ila aladiina nuhuu can الnajwa huma yacuuduuna lima nuhuu canhu wayatanaajawna biاlإثmi wاlcudwaan alam tara ay alam tandur miyaadan fiirin nabiyullaahi muxamedu sala allahu calayhi wasalama ila aladiina kuwii nuhuu laga reebay caninajwaa faqidda huma yacuuduuna u laabanayeen limaa maladii shaygii nuhuu laga reebay canhu maaga xaggiis oo wayatanaajowna haddana ku faqaya bilithmi dembi iyo walcudwaani collaytan iyo wa macsiyati rasuuli rasuulka oo lagu caasiyoobo sala allahu calayhi wasalam waidaa jaa-uuka hadday kuu yimaadiin nimankaa munaafiqiinta nimankaa waxa weeye gaalada ah baan rabaa xayowka way ku salaamayaan bimaa shay bay kugu salaamayaan ama salaan lam yuxayika uusan kugu salaamin bihi maaga lam yuxayika bihi maagaas uusan kugu salaamin allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala wayaquuluuna waxay odhanayaan fii anfusihim naftooda dhexdeeda waxay ka leeyihiin lowlaa yucadibuna allaahu hal laa yucadibuna allaahu ilaahay maana cadaabo qowlkaasaan ku dhawaaqayno ma ilaahay noo qabto haddii nebi moxamed ou rasuul ruma yahay calayhi salaatu wasalaam xasbuhum kaafigooda iyo ku-filaashadoodu jahannamo weeyaan yaslownahaa jahannamo ayay kulaalayaan oo gelayaan fa bi'sa almasiiru meel loo ahaadana jahannama u xun rabbi ha naga badbaadiye yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah iyo rasuul rumeeyeenow idaa tanaajaytum haddii aad faqdaan ood koodaan falaa tatanaajow ha ku faqinina oo ha ku koodinina bilithmi dembi iyo walcudwaani collaytan iyo wa macsiyati rasuuli rasuulka ilaahay ku caasiyoobidiisa sala allahu calayhi wasalam wa tanaajow ku faqa bilbiri wanaag wataqwaa cabsida ilaahay wattaqu llaaha ilaahay ka cabsada alladii ilaahaasoo ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydiin soo shirinayo yoomka qiyaamo oo laydiin soo kulminayo innamaa in kale maahane annajwaa faqidda oo baadilka lagu faqo iyo dembiga min ashaydaani oonbay ka ahaatay liyaxsuna si shayddaanku ou u murjiyo oo u tiiraanyo geliyo alladiina kuwii aamanuu ilaahay rasuul rumeeyey walaysa mana ahaanin shayddaanku ama ruuxa faqaasi ma ahaanin bidaarrihim mid dhibaya mu'miniinta shay-an waxba ka qaadi kara ma ahaanin ilaa biidnillaahi idanka ilaahay wixii ku dhaca mooye wa cala allaahi ilaahay falyatawakkalilmu'minuuna mu'miniintu ha tala saarteen ilaahay oo kale ah subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah iyo rasuul rumeeyow idaa qiila lakum haddii laydiin yidhaahdo tafassaxuu waasiciya filmajlisi makaanu fadhiga fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu ilaahay waxa weeye waasiciyaah lakum adinka ayuu ilaahay khayrka idin waasicinaya wa idaa qiila haddii laydiin yidhaahdo inshisuu war u hinqadoo u soo istaaga ama unshusuu u soo istaaga wa idaa qiilanshisuu ama wa idaa qiilanshusuu bikasri shiini wa bidammihaa labada qiraba waa la aqriyaa wa idaa qiila haddii laydiin yidhaahdo wa idaa qiilanshusuu u soo istaaga haddii laydiin yidhaahdo oo khayrka u soo hinqada wa idaa qiila haddii laydiin yidhaahdo inshisuu u soo istaaga khayrka ama unshusuu u soo istaaga fanshusuu u soo hinqada yarfac illaahu ilaahay wuu kor buu u qaadayaa aladiina kuwii aamanuu ilaahay rasuulkiisa rumeeyeen oo minkum idinka mid a waaladiina kuwii uutuu la siiye alcilma cilmiga la siiyana darajaatin ilaahay darajooyin ayuu ayagana kor ugu qaadayaa oo darajooyin baa kuwaana loo yeelaya
wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan khabiirun waa mid caalim ku ah oo baadinkeeda hoose la socda. yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rasuulkiisa rumeeyow, idaa tanaajaytumu rasuula rasuulka ilaahay haddii aad la koodaysaan, haddii loo yidhaahdo bal u fiirso sida loo ammaanayo dadka ilaahay ou doortay subxaanahu wa tacaala. mu'miniintii baa lala hadlay. haddii laydin yidhaahdo majliska waasiciya ilaahay markaasuu idinkale idin waasicinaya. haddii la yidhaha khayrka u soo istaaga baa la yidhi. yarfac illaahu ilaahay kor buu u qaadaya aladiina kuwii aamanuu rumeeyeen oo minkum idinka mid ah, waaladiina kuwii uutuu la siiye alcilmigana darajaatin ilaahay darajaad buu kor ugu qaadaa. wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun waa mid baadinkeeda caalimku ah. yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rasuul rumeeyeenow, idaa tanaajaytumu rasuula rasuulka haddii aad la faqaydaan, faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum faqidiinna horteeda sadaqatan ka sii hormariya. daalika tasaduqaas ayaa khayrun lakum idin khayr badan, wa adharu asagaa daahir noqosho badan. fa in lam tajiduu haddii aadnaan helin waxaad la baxdaanba, fa ina allaha ilaahay kafuurun waa mid dembi dhaafid badan, raxiimun oo raxmad badan ilaahay subxaanahu wa tacaala. ashfaqtum ma cabsateen an tuqadimuu inaad hormarisaan bayna yaday najwaakum faqidiinna horteeda sadaqaatin inaad ka sii hormaridaan ma ka baqdeen? fa in lam tafcaluu sidaa haddii aadnaan yeelin, walxaal taaballaahu ilaahayba uu tooba aqbalay calaykum dushiinno idin cafiyaba, fa aqiimuu ooga assalaata salaada ooga, wa aatuu dhiiba assakaata sakadana dhiiba, wa adiicu llaha ilaahay adeeca, wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisana adeeca. wallaahu ilaahay khabiirun waa mid caalim ku ah bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan. ilaahay caalim buu ku yahay subxaanahu wa tacaala. casharkeenna tafsiirka qur-aanka wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 8 oo min suurati almujaadala ayuu ka bilaabanayaa. haddaba aayaddan ilaahay wuxuu nagu leeyahay subxaanahu wa tacaala, alam tara ay alam tandur, miyaadan fiirin oodan arkinin nabiga ilaahaeyo. waxay aayaddaanu ku soo degootay baa la yidhi nimankii waxa weeye la odhan jiray yahuudda ayay ku soo degootay. nimankii yahuudda buu yidhi imaamu alqurdubi ay ku soo degootay iyo munaafiqiintoo wada jira, li'annahum waafaqi jireen baa la yidhi. waafaqaan way sheekaysan hayaan, faq bay gelayaan, markaabay waxa weeye mu'miniintii bay ku abuurayaan shaki iyo welwel iyo walbahaar bay ku abuurayaan. waafaqayaan meel bay iskugu imaanayaan, markaas xoogaa indhaha isku jebinayaan. mu'miniinta markay waxa weeye arkaan, nabigu markaasuu ka reebay calayhi salaatu wasalaam, war how laabanina baa la yidhi ficilkaas. markaasay waxa weeye ku laabteen. aayadahan ayaa ku soo degooday faqii xunka ahaa oo baadilka oo ay samaynayeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadahan buu ku soo dejiyey. mu'miniintay doonayaan inay shaki ku abuuraan baa la yidhi oo qalbigooda ay shaki ku ridaan. waxaa kaloo la yidhaahdaa waxa weeye khabarkaas ayaa macnaha waxay mu'miniinta tusinayaan baa la yidhi inuu khabar soo gaaray oo waxa weeye mu'miniintu si ay ugu maleeyaan bay rabaan. qad balaqahum khabaru ikhwaanihim aladiina kharajuu fi saraaya wa annahum qutiluu ow maatuu ow husimuu fayaqacu dalika fii quluubihim wayuxsinuhum. mu'miniintii baa waxa weeye arrintaa markay arkaan iyagoo faqaya oo shawrshawraya bay waxay is odhanayaan, alla nimankan ma waxaa soo gaaray walaalihiinii jihaadka u baxay in qaybo ka mida la dilay, ama inay dhinteen, ama in haziima ku dhacday. waxaa kaloo la yidhaha aayaddaani waxay ku soo degootay aayadahan hadda aanu ka hadli doono aayadda noogu horrayda. cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi sida qurdubiga ou caddeeyey, yahuuddi iyo munaafiqiintay ku soo degootay, waafaqi jireen, mu'miniintay markaa fiirinayaan, markaasay indhaha isku jebiyaan.
markaasay mu'miniintu waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa qaraabadeennii walaalaheennii reer muhaajiriin iyo ansaar dil la dilay ama musiibo ku dhacday ama hasiimo soo gaartay inay maqleen markaasay nabiga u soo sheegteen annaga oo nimankaana naga murjiya mar walba hoosay u faqayaan waxa ay sheegayaan ma aanu ogin waan naxaynaa waa murugaysannahay waxaan u malaynaynaa inay dhibaato ay maqleen oo ay naga qarinayaanu jidho nabigu waa ka reebay war waxaa ha samaynina baa la yidhi markaasay u laabanayaan imaamu qaatil oo kale wuxuu yidhi waxay ku soo degootay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo yahuuddii madiine joogtay waxay ballanku kala galeen waxa weeye in laysnabadgeliyo markii qof ka mida mu'miniintu soo maro bay faqaan markaasay mu'miniintu u malaynayaan mu'minku u malaynayaa shar iyo dhibaato in lagu tilmaamayo markaasuu waddada dhan ka leexanaya oo ka barriiqsamaya nabigaa ka reebay markaasay haddana ka reebtoomi waayeen aayaddan baa ku soo degootay cabduraxmaan ibnu zayd ibnu aslam wuxuu yidhi nin baa nabiga u imaan jiray calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabiga dan weydiisa jiray nabigow la faqahayaa calayhi salaatu wasalaam maalinkaana dagaallo iyo waxbaa jiray markaasay waxa weeye u moodayaan annahu yunaajiihi fii xarbin ow baliyatin ow amrin ow arrimahaasu kaley u malaynayaan baa la yidhi ow arrimahaasoo kaleeto ayay u malaynayaan macnaha inuu waxyaabo kala faqayo markaasay mu'miniintu isku naxayaan adugu calaa xaasil waxa weeye munaafiqiintii iyo yahuuddii bay ku soo degootay sidaas baa la yidhaahdaa alam tara ay alam taclam miyaadan ogsoonayn nabiga ilaaheeyo ila aladiina kuwii nuhuu laga reebay caninajwaa faqidda iyo koodidda ayaa loo diiday huma yacuuduuna markaasi waxay u laabanayaan lima shaygii nuhuu laga reebay canhu maaga xaggiis shaygii la yidhaha samaynina bay ku laabanayaan yarjicuuna ila almunaajaat allatii nuhuu canhaa ta'tii bay u laabanayaan wayatanaajuuna waxayna ku faqayaan buu ilaahay yidhi bilithmi dembi iyo walcudwaani collaytan iyo wa macsiyati arasuuli rasuulka oo lagu caasiyoobo calayhi salaatu wasalaam waxa weeye ithmi cudwaan macsiyati rasuul iyo waxyaabahaabay ku sheekaysanayaan wayataxaddathuuna fii maa baynahum bima huwa ithmun wa cudwaanun wa mukhaalafatun liamri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam bay ku sheekaysanayaan weeyi lianna sheekadoodu waxay ku wareegayda baa la yidhi xowla almakri waalkaydi bilmuslimiin muslimiinta sidii loo hagarsan lahaa oo loo dhibaatayn lahaa ithmi baa lagu bilaabo u yidhi abuxayaan waa cumuumka iyo uu qabo isagu cudwaankaa lagu xijiye baa la yidhi ay nabiga iyo waxa weye la collaytamaan maxaa yeele nufuusta id hiya dulumaatulcibaad weeyi huma taraqaa ilaa maa huwa acdamu wa huwa macsiyatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam nabigay ku caasiyoobayaan calayhi salaatu wasalaam wa fii haadaa dacnun cala almunaafiqiin idaa kaana tanaajiihim fii daalika weeyi wa idaa jaa'uuka nabi muxamedow hadday nimankaas kuu yimaadiin baa la yidhi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi markay u yimaadiin salaan xun bay ku salaami jireen waxay ku salaami jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam habaar bay ku salaamaan assalaamu calayka meeshii la odhan lahaa bay waxay odhan jireen baa la yidhi assalaamu calaykum korkiinna mawd allaha yeelo ilaahay waxa weeye mawd dushaada allaha yeelo ay nabiga ku dhihi jireen baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam wa idaa jaa'uuka hadday kuu yimaadiin nimankaa munaafiqiinta ah xayowka waxay kugu salaamayaan bimaa lam yuxayika allaahu ilaahay shay uusan kugu salaamin bay kugu salaamayaan aayaddu sidaas weeye xayowka weeyaan wa idaa jaa'uuka hadday kuu yimaadiin xayowka way ku salaamayaan bimaa bay kugu salaamayaan lam yuxayika allaahu ilaahay lam yuxayika bihillaahu dheh ilaahay uusan kugu salaamin ilaahay wuxuusan kugu salaamin oo in lagugu salaamo loogu talagelin bay kugu salaamayaan nabiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam bal u fiirso rasuulka calayhi salaatu wasalaam shay aan ilaahay u jidayn in lagu salaamo ilaahayna ku salaamin bay ku salaamayaan wayaquuluuna waxayna leeyihiin fii anfusihim naftooda iyo qalbigooda waxay ka odhanayaan lowlaa yucadibuna allaahu hallaa yucadibuna allaahu ilaahay maana cadaabo bimaa naquulu
waxa aan odhanayno ilaahay maa noo cadaabo haddii aan nabi moxamed hadduu rasuul yahay oo aan qalad ku dhawaaqnay maxaa naloo sugayaa maa cadaabta naloo soo dedejiyo taas waxay tusineen marba haddii aan inta caynay oo habaarnay oo waxun dhahnay aan waxba dhibaataha nagu dhacaynin inaannu saxannahay ay taasu tusaale u tahay bay leeyihiin xasbuhum jahannamu xasbuhum meesha kaafigooda ah oo ayaga ku filani jahannamo weeye buu ilaahay yidhi rabbi ha naga badbaadiye yaslownahaa jahannamada ayay gelayaan fa bi'sa almasiiru meel la ahaadana jahannamo oonbaa u baas leh ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nabiga markii ay nabi moxamedo kuu yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waidaa jaa'uuka xayawka bimaa lam yuxayika bihi allaahu aayaddu sidaas weeyi waidaa jaa'uuka xayawka bimaa lam yuxayika bihi allaahu waidaa jaa'uuka haddii marka hore bihillaahuda aan halmaanay sidaa weeyaan waa sidaasay ku saxan tahay waidaa jaa'uuka hadday kuu yimaadiin nimankaa waxa weeye munaafiqiinta ah hadday kuu yimaadiin ama gaalada ah nimankaa waxa weeye gaalada ah hadday kuu yimaadiin buu ilaahay yidhi xayawka way ku salaamayaan bimaa bay kugu salaamayaan lam yuxayika ousan kugu salaamin bihi maaga allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala markay majliskaaga soo xaadiraan baa la yidhi rasuulka ilaahayow oo meesha aad joogto ay yimaadiin waxay kugu salaamayaan salaam ousan ilaahay kugu salaamin bay kugu salaamayaan bitaxiyatin daalimatin lam yashracha allaahu walam ya'dan fiiha salaam aan ilaahayba idmin oo dulmi ah oon ilaahayba kugu salaamin bay kugu salaamayaan waxay odhan jireen baa la yidhi yahuuddu assaamu calaykum saasay nabiga ku salaami jireen calayhi salaatu wasalaam korkaaga mawd allaha yeelo mawd korkaaga allaha yeelo bay ku dhihi jireen nabiga sala allahu calayhi wasalam waa yahuudda weeye nabigay u imaanayaan markaasay leeyihiin calayhi salaatu wasalaam assaamu calaykum bedelan assalaamu calaykum meeshii assalaamu la dhihi jiray laamkii bay ka tegayaan markaasay alif ku taagayaan siinkii markaabay odhanayaan assaamu calaykum saamkuna waxa weeye waa mawt wahwa maa araaduuhu biqowlihim hadalka say uga jeedaanna waa nuuca nabiguna wuxuu u dhihi jiraa la yidhi calayhi salaatu wasalaam wa calaykum ugama badiyo isla hela meesha laga yidhaahdo korkeenna idinka allaha yeelo dhimashada oo ku dhihi jira nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yaziidu calayha caaishaa maqashay baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalka ay ku odhanayaan markaasay maalin waxay tidhi baa la yidhi bal calaykum assaamu wallacnatu mawd iyo lacnad adinka dushiinna ha ahaato le'anna nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaad hadalkaa xun ku odhanaysaan nabigu markaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam caaishay nabigay waxay ku tiri baan rabaa amaa samicta maa qaaluu rasuulka ilaahayow miyaadan maqal hadalka ay kuu dhaheen markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam amaa samicti maa qultu lahum adugu ma waadan maqal midkaan ugu jawaabay waxaan u idhi buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam adinka dushiinna mawdka allaha yeelo ad igu habaaraysaan isla hela adinka dushiinna allaha yeelo fayastajiibu allaahu lii fiihim walaa yastajiibu lahum fiya wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay aniga tayda waa aqbalaa oo ayaga musiibadiiba ku dhacayda laakiin habaarkooda aniga ilaahay ii aqbali maayo oo igu dhici maayo oo waxba igama qaadi karaan buu yidhi sala allahu calayhi wasalam waidaa jaa'uuka hadday kuu yimaadiin nimankaa gaalada ah oo yuhuudda ah xayawka waxay kugu salaamayaan bimaa shay lam yuxayika bihi allaahu ilaahay ousan kugu salaamin sala allahu calayhi wasalam ayay kugu salaamayaan wayaquuluuna waxay odhanayaan fii anfusihim markay haddana salaantaa xun la yimaadiin bay waxay odhanayaan baa la yidhi dhexdooda iskala hadli jireen hal laa yucadibana allahu bihada alqowl low kaana muxammadu nabiyan falow kaana nabiyan xaqan lacadabana allahu calaa hada alkalaam haddii uu nabi moxamed ou yahay rasuul saxa oo nabi ruma ou yahay hadalka aanu ku dhawaaqnay maxaa macnaha waxa weeye ilaahay ou noo sugayaa cayda aan caynayno maa noo cadaabo iyo fududayska aan fududaysanayno waxay jaahil ka yihiin baa la yidhi ana albaari'a tacaala xaliimun laa yucaajilu cuquubata liman sabbahu fakayfa man sabba nabiyahu sala allahu calayhi wasalam
ilaahay waa ilaah dulqaad badan xitaa qofkii asaga wax ka sheega ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u kaadinayaa ilaahay kuwii wax ka sheega xataa u kaadinayaa iskaba dhaaf qofkii nabigiisa wax ka sheegee xataa ilaahay kuwii caayay oo waxa weeye dhaheen ilaahay sawjow leeyahay awlaad buu leeyahay ayuu ilaahay iska cafinayaa markaasuu irsaaqayaa baa la yidhi marka taas bay jaahil ka yihiin ilaahay waa u kaadinaya subxaanahu wa tacaala wayaquuluuna waxay odhanayaan yahuuddu fii anfusihim naftooda waxay ka leeyihiin qalbigooda lowlaa yucadibuna allaahu ilaahay maana cadaabo markay ka tagaan nabiga ay saa odhanayaan bimaa naquulu hadalka aan ku qowlayno maa noo cadaabo hadduu nabi yahay xasbuhum kaafigoodu jahannamo weeye buu ilaahay yidhi yaslownahaa way gelayaan jahannabaa macnaha ku filan inay galaan naarta jahannamo oo ku gubtaan weeyaan yaslownahaa jahannabadii bay gelayaan acaadana allaahu minhaa fa bi'sa almasiiru meel la ahaadana jahannama xumaan badan ilaahay ha naga badbaadiyo xadiis saxiixa waxaa ku soo arooray oo nabiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam laa axadun asbara cala aladaa min allaahi yadcuuna lahu asaaxibata waalwalada wahwa yucaafiihim wayarsuquhum ilaahay waxa weeye siduu addoommadiisa markay wax ka sheegaan ugu sabro oo macnaha u cafiyo ugu dulqaato wax uga dulqaad badani ma jiraan ilaahay waxay ugu yeerayaan sawjo owlaad markaasuu cafinayaa oo haddana irsaaqayaa aayadahan ilaahay waxa weeye ilaahay wuxuu soo dejiyey aayaddan haadaa kashfan lisaraa'irihim wa fadxan libawaadinihim baa la yidhi wa takriiman lirasuulihi korashada loo koranayana waa adduunyada fa min karaamaatihi calaa rabbihi likownihi bacahahu raxmatan lilcaalamiin nabiga calayhi salaatu wasalaam karaamaynta ilaahay karaamaya waxaa ka mid a waxa weeye in ay raxmadda rasuulka ay ku badbaadaan oo adduunyadaas raxmadda nabi moxamed dhinacooda ay ka joogaan laakiin aakhira laga jesiinaya iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan nagu soo socotana waxaa looga digayaa mu'miniintu markay faqayaan oo ayaguna ay koodayaan shay dembi ah sidii munaafiqiintu ay u faqi jireen iyo yuhuud iyo gaaladu ayaga inay sameeyaan baa looga digaya yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah iyo rasuul rumeeyeenow idaa tanaajaytum haddii aad faqaydaan buu ilaahay yidhi ood koodaysaan falaa tatanaajow bilithmi dembi ha ku faqinina shay dembi ah ha ku koodinina iyo walcudwaani collaytan shay collaytan iyo waxa weeye dembi iyo waxyaabaha ah faqiinu yuusan noqon iyo wa macsiyati rasuuli rasuulka oo lagu caasiyoobo sala allahu calayhi wasalama ha ku sheekaysanina shay dembi ah kaalqabiixi min alqowl ama shay cudwaan ah ama shay waxa weeye mukhaalafo iyo macsi ku jidho amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam watanaajow faqa bilbiri wanaagga iyo wataqwaa cabsida ilaahay ku faqa oo ku kooda weeyaan shaygay khayr idiin ah oo daacada ilaahay iyo ixsaanku ku jiro ha ahaado faqiinu markaad faqaysaan weeyaan ha samaynina buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala sida ficilkii munaafiqiinta yahuuddu ay samay jireen daacada iyo taqwada iyo cafaafka iyo waxyaabaha wanaagsan waxa weeye ha noqdo faqiinu wattaqullaha ilaahay ka cabsada alladii ilaahaasoo ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydiin soo shirinayo ilaahay ka cabsadoo awaamirtiisa qaata ilaaha laydiin soo kulmi doono qiyaamada waxa weeye ilaaha ka cabsada subxaanahu wa tacaala hadda waxaa la yidhi faqitaanka mu'miniintii sidaas baa ilaahay waxa weeye oo kula hadlay subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhi markii waxa weeye ee muslimiintu ay faqayaan ama ay macnaha koodayaan baa la yidhi oo tanaaji ay samaynayaan sidaan bay waxa weeye ay macnaha uu ilaahay amray subxaanahu wa tacaala markaad faqaysaan baa la yidhi waxa weeye ha noqdo faqiina iyo koodidiinnu ha noqdo mid ilaahay cabsidiisa iyo khayraadka aad ku koodaysaan ha noqdo weeye waxaa la yidhi cabdullaahi ibni cumar wuxuu ka wariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa kuntum halaathatan falaa yatanaajathnaani duula thaalithi markii aad saddex qofood meel ku joogtaan saddexdaa qofood laba ka midu inay faqaan hadday doonaan midka kale in meesha looga tago lama oggola duuna alaakhari
xataa yakhtariduu binnaasi min ajli an yuxsinahu arrintan inuu kaa laga tagaa oo ka murugoodo oo waxa weeye uu macnaha is yidhaahdo maaday kuu tashanayaan baa dhici karta marka lama ogola weeyaan sayid cabdullaahi ibni cumar waxaa la yidhi maalin qof buu la sheekaysanayay kaana wuxuu ha yataxaddathu maca rajulin isagoo nin la sheekaysanayaa nin u yimid baa la yidhi ninkaasuna wuxuu rabay inuu la faqo markaasuu ka diiday qof afaraad noo raadi buu yidhi qof afaraad baa marka la helay kiibuu yidhi ninkan la sii joog labadeenna faq baan leenahay qofka in meel looga tagaa la diidayaa ee ou macnaha waxa weeye shakiyo imaamu alqurdubi wuxuu yidhi xadiidka daahirkiisu jamiic asmaanta iyo axwaasha iyo kulligood ayuu cammimayaa waana sida ibnu caamir imaamu maalig iyo jumhuurta ku fasireen shaygaa lagu faqaa ama ha noqdo waajib ama sunno ama mubaax maxaa yeelay haddii inuu qofkaasu murugoodaa la diidayaa culummada qaarna waxay dhaheen islaamka bilowgiisii bay arrintaasu ay ku qaas aheed qaarna waxay dhaheen safarada iyo meelaha qofka uusan ku aaminahaynoo markaa waxa weeye saaxiibkii iyo inuu wax gaareen uu ka baqayo bay ku khaas tahay weeyaan amaa fi lxadari wa bayna alcimaara markaa arrintu xukunkan caam noqon maayo culummadii qaar baa sidaan iyaguna odhanaya innamaa in kale maahane annajwaa faqida buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala innamaa in kale maahane annajwaa faqitaanku oo dembiga iyo waxyaabaha xun lagu faqo oo lagu koodo min ashaydaani bay ka ahaatay waa waxyaabaha shaydaanku qofka uu amrayo ilaa shay xun in waxa weeye lagu koodo oo lagu faqo hadda waxa weeye shaydaankiibaa amraya shaydaanku wuxuu arrintaa u samaynayaa liyaxzuna inuu shaydaanku ka murjiyo aladiina kuwii aamanuu ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey walaysa mana ahan shaydaanku bidaarihim mid ku dhibi kara mu'miniintii shay-an waxba kama qaadi karo ama walaysa ma ahaanin tanaajigaasu bidaarihim mu'miniinta mid dhibi kara bishay-anna ku dhibaatay kara ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooye mashiicada ilaahay iyo iraadada ilahay wax ku dhaca maahane faqaanu hadda xaqiiq ahaan qofka mu'minkaa waxba kama qaadi karo laakiin shaydaanka ayaa arrintan ka dambeeya oo qofka mu'minka in laga murjiyo ka shaqaynaya wa cala allaahi ilaahay falyatawakkali almu'minuuna mu'miniintu ilaahay keligii ha cuskadeen hana ku kalsoonaadeen munaafiqiinta iyo yahuudda iyo munaafiqiinta koodidda ay koodayaanna yaysan waxba ka soo qaadin ilaah baa ka dhowraya shartooda hagartooda xadiid waxaa ku sugnaay inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sida aan soo sheegna uu yidhi idaa kuntum halaathatan falaa yatanaajathnaani duuna saaxibihimaa fa ina dalika yuxzinuhu akhrajahu albukhaari wa muslim saasaa ku sugnaa xadiid nabiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam sidaabaa ku sugnaed weeyaan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah iyo rasuul rumeeyow idaa qiila lakum haddii laydiin yidhaahdo tafasaxuu waasiciya fi lmajlisi meesha la fadhiisanayo makaano fadhiga ah fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu lakum ilaahay markaa idinkana idin waasiciye ilaah idin waasicinaye waidaa qiila nshusuu waidaa qiila haddii laydiin yidhaahdo inshisuu ama unshusuu war soo istaago khayrka usoo hinqada fanshusuu usoo hinqada khayrka ka yeela oo khayrkaa loo soo istaago yarfac illaahu ilaahay kor u qaadee aladiina kuwii aamanuu ilaahay rasuulkiisa rumeeyey oo minkum idinka mid a waaladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmigana darajaatin buu ilaahay kor ugu qaadayaa wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan khabiirun waa mid caalim ku ah oo baa'adinkooda hoose daalacanaya yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu nagu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qiila lakum tafasaxuu fi lmajlisi fafsaxuu waxaa la yidhi aayaddaani waxay ku soo degootay baa la yidhi waxa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam imaamu muqaatil siduu sheegay waxaa la yidhi aayaddan waxay ku soo degootay rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtii beder ayuu aad iyo aad rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo u qaymay jiray oo u sharfi jiray sala allahu calayhi wasalam marka isagoo asxaabtii dagaalkii beder
oo muhaajiriintii ansaarta nabigu aad buu u ikraami jiray. maalin bay marka u yimaadeen asxaabtii beder ka qayb gashay. thaabit ibnu qaysna wuu la socdaa. goobtiibaa macnaha waxa weeye dad badan ayaa marka meeshii fadhiya. waa laga soo hormaray. nabigana saxaabi walba wuxuu rabaa inuu dhegaysto hadalka uu dhahayo u soo dhowaado calayhi salaatu wasalaam. markaasay istaageen xiyaala nabiy sala allahu calayhi wasalam ayagoo lugahooda ku taagan, yantadiruuna an yuwasaca lahum falam yufsaxuu lahum. waxay sugayaan baa la yidhi in meelsha la waasiciyo oo la kala sikado oo boos loo banneeyo. xaggaabay taagan yihiin, qof macnaha wax u boos u bannaynaydana ma leh. nabiga arrintiibuu dhibsaday calayhi salaatu wasalaam. marka dadkii agta ka fadhiyey oo ayagu aan beder ka qayb gelin oo wuxuu u yidhi baa la yidhi, yaa fulaan qum yaa fulaan qum yaa fulaan bicadadil waaqifiina min ahlilbadr. intii taagneed qadar la-eg oo yidhi ka istaaga meeshii. dadkii meesha laga taajiyey way ka murugoodeen. munaafiqiintiina dacaayad bay bilaabeen. markaasay dhaheen baa la yidhi, maa cadala maca haaulaa'i. nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wille maanta cadaala ma samayn. qoladan meeshoodii fadhida ayuu meeshoodii ka taajiyey. qolo kaleeto ayuuna meeshii fariisiiyey. cadaala maahan bay dhaheen. marka ilaahay aayaddan ayuu soo dejiyey. aqwaal kalena way jirtaahoo oo macnaha aayaddan waxaa la yidhi iyaduna ka warramaysa way jirtaa weeyaan. kaa kaliya ma aha. arrintaa kaliya macnaha waxa weeye ma ahan. taas baa hadda aan sheegnay ayaa ka mida baa la yidhi. waxaa ka mida macnaha waxyaabaha lagu fasiray. cabdullaahi ibnu cabbaas oo kale wuxuu yidhi aayaddaani waxay ku soo degootay thaabit ibnu qays. wuxuu masaajidka nabigu soo galay maalin calayhi salaatu wasalaam iyadoo dadkii qof walbaaba meeshiisii uu fadhiistay. wuxuu doonaya baa la yidhi inuu nabiga u dhowaado. markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ee diinta laga dhegaysto nabiga inuu u dhowaado wuxuu dhahaya maqlo. xoogay dhegihiisa culays baa ku jiray baa la yidhi. marka hadalka inuu u dhowaadou rabaa. inuu u dhowaadou doonayaa weeyaan. waa loo waasiciyey meeshii oo nabigu u soo dhowaaday calayhi salaatu wasalaam. dadkii marka meeshaa fadhiyey iyo asagiibaa isciriiriyey. asaga iyo waxa weeye qofkii garabkiisa fadhiyey hadal baa dhex maray. aayaddan ayaa soo degootay. taana waa la yidhaahdaa. imaamulqurdubi wuxuu yidhi aayaddaani waxay sida saxiixa ah waxay caam ku tahay meel walba oo muslimiintu iskugu yimaadiin oo wuxuu yidhi khayr ugu soo kulmaan. khayr ay iskugu yimaadiin ama ha noqdo meelaha xarbiga ama dikriga ama meesha jumcada ha noqoto hadday doonto. qof walbaana meeshuu fadhiisto oo u soo hormaro asagaa xaq u leh. isagaa xaq u leh. leanna waxa weeye man sabaqa ilaa maa lam yusbaq ilayhi fa huwa axaqu bihi. walaakiin inuu saaxiibkii xoogay u waasiciyo markuu yimaado meel yar uga sikado waa sida wanaagsan oo shareecadu amrayso. imaamulqurdubi oo kale wuxuu yidhi masalan maalinka qof haddii uu macnaha qof ku yidhaahdo jumcada iga sii hormar ee meel iisii qabo lama kohda buu yidhi. qofkii meeshaa iisii qabo yidhi idaa amara insaanun insaan an yubakira ila aljaamic faya'khuda lahu makaana yaqcudu fiihi laa yukrahu. qofkii markuu yimaadana meeshiiba uga istaagaya wax dhibaataa male buu yidhi. anas ibnu siriin wuxuu diri jiray addoonkiisa ah maalinka jumcada. markaasuu waxaa la yidhi meeluu usii fadhiistaa oo usii qabta boos markuu yimaado ayuu uga istaagaa. waa markii qof uu meesha kuu fadhiistay hadhow kuu bannay asagii. laakiin haddaad cimaamadda waxa weeye aad tidhaa inta qof u dhiibato iisii dhig boos ama aad tidhaa waxa weeye shaygaa iisii dhig oo meeshii lusaa loogu firaasho. waxaa la yidhi masjidkii oo kaleeto iyo ilaa uu ka yimaado yidhaa booskaa waxa weeye ha iisii firaashnaado oo markuu yimaado ou fadhiisto. wa amaa idaa arsala sajaadatan ow naxwaha litufrasha lahu fi lmasjidi xataa yaxdura huwa fayajlisu calayha fadalika xaraamun. taasi ma bannaana. waxaa ku sugan masjidkaoo ciriiri la geliyo bilaa faa'iidatin iyadoon qofna meeshii fadhin oo ciriiri laga dhigo baa ku sugan baa la yidhi. taasaa iyada ku sugan weeyaan. haddii marka waxaa mu'miniintii la amray calaa xaasil aayaddan haddii laydiin yidhaahdo waasiciya oo kala sikadoo meel isku banneeya haddii la yidhaahdo oo waxa weeye booskii waasiciya oo kala sikadoo qofka yimid boos u banneeya waa inaad yeeshaan weeyaan. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam meel la fadhiyo markuu yimaado meesha bannaan oo uu ka soo gaaro oo
booska ka bannaan ayuu fadhiisanayay sala allahu calayhi wasalam. waasiciya markii laydin yidhaha booska waasiciya oo amarkaa qaata weeyaan. fil majlisi markii laydin yidhaahdo war majliska waxa weeye waasiciya waa inaad yeeshaan baa la yidhi oo waasicidaan, waa inaad sidaas yeeshaan weeye, sidaa inaad qaadataan baa la yidhi, waa la amray. leanna midkaas baa macnaha waxa weeye aa idiin khayr badan oo idiin wanaag badan oo idiin ajir badan inaad samaydaan ood ku dhaqataan ku camal fashaan, sidaas baa idiin wanaagsan weeyaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi haddana haddii laydin yidhaahdo istaaga oo salaadii iyo khayraadkii usoo istaaga weeyaan. haddii laydin yidhaha booska waasiciyana waasiciya, ilaaha idin waasicinaye. ilaahay wuxuu idin waasicinayaa wax walbood doonaysaan oo khayra, xagga arsaaqda iyo waxa weeye qalbiga oo khayrka idin gelaya, qabriga, jannada, kulligood waa idin waasicinayaa weeyaan. ruuxii addoommada ilaahay u waasiciya calaa anna man wasac cibaadallaahi abwaaba alkhayr, waa sidaasoo kaleeto ilaahay baa isagana khayraadka u waasiciya weeyaan. ilaaha ku waasicina haddaad adiguna addoommada ilahay u naxariisato, sidaasoo kaleeto baa macnaha waxa weeye ayaa soo gelaysa. sidaas baa la yidhaahdaa. majliska markii laydin yidhaahdo waasiciya, adinkuna waasiciya baa la yidhi. hadda waxa weeye yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah iyo rasuul rumeeyow, kuwii ilaah iyo rasuulkiisa rumeeyow, idaa qiila lakum haddii laydin yidhaahdo tafasaxuu waasiciya fi lmajlisi, fi lmajaalisi ama fi lmajlisi labadaba waa la akriyaa baa la yidhi. oo waxa weeye fi lmajlisina waa qiro, fi lmajaalisina waxa weeye waa qiro kaleeto. waa laba qiro oo qur'aanka kariimkaa ka mid ah oo labadaba haddii aad akhrido sax baad ku taagtaha weeyaan. idaa qiila lakum haddii laydin yidhaahdo tafasaxuu waasiciya fi lmajaalisi, majaalista waasiciya haddii laydin yidhaahdo, ama fi lmajlisi sida qirada abicamarka waasiciya haddii laydin yidhaahdo, fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu lakum, ilaahay baa idin waasicinaya, adinkana waxa weeye raxmaddiisa, jannadiisa ayuu idin waasicinaya. imaam almujaahid wuxuu yidhi waxay ku kala hormari jireen nabiga majliskiisa calayhi salaatu wasalaam. markaas baa la faray inay isku waasiciyaan, tawaaduc ayaa la faray, iyo majliska inay waasiciyaan si qofkii doona inuu nabiga ag fadhiisto oo u helo boos, dadku say ugu signaadaan baa la yidhi nabiga khayrka laga qaadanayo calayhi salaatu wasalaam. qof inuu meel yidhaha qof kale ka taajiyo lama ogola oo markaa fadhiisto. walaakin tawasacuu watafasaxuu yafsax illaahu lakum, ilaahay baa idin waasicinaya, sidaas sameeya baa la yidhi. lianna addoonku intuu u naxariisanayo, waclam ana alaayata dallad calaa ana kula man wasaca calaa cibaadillaah abwaaba alkhayr waalraaxa wasaxa allaahu calayhi khayraati dunya waalaakhira weeyi. addoonku intuu u kaalmaynayo waxa weeye addoonka ilaahay intuu u kaalmaynayo, ilaahay baa isagana u kaalmaynaya. waidaa qiila inshisuu, waidaa qiila haddii laydin yidhaahdo inshisuu war soo istaaga, ama unshusuu soo istaaga, fanshusuu u soo istaaga khayraadka. yarfac illaahu, ilaahay wuu kor yeelayaa aladiina kuwii aamanuu ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey oo minkum idinka mida, waxa weeye ilaahay baa darajadooda kor u qaadaya. aayaddan cabdullaahi ibn mascuud aad iyo aad buu u jeclaa jiray. qofkii waxa weeye aayaddan akhriya buu dhihi jiray si fadliga cilmiga aad u ogaataan. ilaahay baa kor idin qaadaya, kuwiibuu ilaahay kor u qaadaa oo ilaahay rumeeyo idinka mida, iyo waladiina kuwiina kora baa loo qaadaa uutuu la siiyey alcilma cilmiga, darajaatin baa kor loogu qaadaa, darajooyin fara badan baa kuwa ayaga la siinayaa weeyaan. leanna qofka ahlucilmiga ah fadligiisu aad iyo aad buu u fara badan yahay. wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun, waa mid caalim ku ah oo baadinkeeda hoose la socda, tilaabo walbood qaadaysaan ilaahay caalim buu ku yahay. yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah iyo rasuul rumeeyow, idaa tanaajaytumu rasuula, rasuulka ilaahay haddii aad la faqdaan ood la koodaan oo sir hoos aad doontaan inaad kula sheekaysataan, faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum,
faqidiina horteeda sadaqatan ka hormariya nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la yidhi bay waxa weeye su'aal mar walbay u imaanayaan su'aashii baa nabiga ku badatay calayhi salaatu wasalaam aad baa rasuulkii loogu imaanaya sala allahu calayhi wasalam markaas baa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii aad doonaysaan baa la yidhi inaad nabiga ilaahay la faqdaan oo aad la koodaan intaadnaan la koodin oo aadnaan la faqin marka hore sadaqa la sii baxa xukunkaana waa la nasakhay ka bacdi waa la nasakhay weeye arrintaas weeyaan waa mansuuqoo xukunka ah waxaa lagu nasakhay sida aayadda waa noo imaan doontaa waa laga cafiye mu'miniinta sadaqadaas leanna way ku adkaatay faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum faqidiina horteeda sadaqatan kasii hormariya daalika sadaqadaas ayaa khayrun lakum idin khayr badan wa adharu ayadaa daahir noqosho badan oo xagga dunuubta laydinkaga mayraya ayadaa daahir noqosho badan fa in lam tajiduu haddii aadnaan helin waxaad la baxdaan maba haysataanba maalan fa ina allaha ilaahay kafuurun waa mid dhaafid badan oo raxiimun haddana naxariis badan dad waxaad la baxdaan weydaan baa la yidhi ilaaha idin saamaxaya oo idin cafinaya li'annahu ilaahay qofka wuxuusan awoodin kuma kallifo ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniintii ayuu wuxuu ku yidhi a ashfaqtum ma cabsateen ayuha almu'minuuna ee mu'miniintaanay inaad waxa weeye sadaqadaas hormaridaan qabla almunaajaat ma ka cabsateen an tuqadimuu inaad hormaridaan ma ka baqdeen bayna yaday najwaakum faqidiina horteeda sadaqaatin inaad hormarsataan ma ka cabsateen fa in lam tafcaluu haddii aadnan sidaa yeelin oo aadnan sadaqadii bixin oo shaygii laydin amray aadnaan samayn oo ay idinku adkaato ilaahaaba idinka cafiyeye sidaa haddii aadnaan yeelin maba aadna hadda yeelinba wal xaal taaba allaahu calaykum ilaahaynaba uu idinka tooba aqbalay oo idinka cafiyey oo idiin oggolaaday inaad nabiga u tegi kartaan la sheekaysan kartaan la faqi kartaan adinkoon sadaqa bixin fa aqiimuu ooga jidkaan kaloo laydin amray soo raaca fa aqiimuu ooga assalaata ooga wa aatuu dhiiba asakaata sakadana dhiiba wa adiicu llaha ilaahayna adeeca wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisana adeeca wallaahu ilaahay khabiirun waa mid caalim ku ah bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaanna acmaashiinna iyo niyaadkiinna ilaahay baa koobay oo caalim ku ah marka aayaddaas waxa weeye xukunkaas waa la nasakhay oo waxa weeye waajib hadda kuma aha qofku inuu sadaqo ka hormariyo qabla almunaajaat amarkaaba marka hore la saaray laakiin ka bacdi waxaa la yidhi taa waa laydinka cafiyey tafsiirkeena qur-aanka kariimka caawa intaas baan ku soo koobaynaa wallaahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh